waxaan leeyahay ku soo dhawaada Daarusalaam iyo gurigan quruxda badan oo hore loo arkin. waxaan leenahay soo dhawaada gacan furfur. gurigan saa u jeedid waa alwaax iyo biro la isku alxamay. صح waxa guriga in lagu raaxaysto oo waqti qurux badan lagu qaato aa loo dhisay. waa cabirkiisa waa 15 waliba waxaa la dhahaa G+1 oo ah guriga biyaano hoose biyaano koro waaye laba jiko iyo laba musqulna uu leeyahay. gurigan waa guri laga fakaray oo waqti iyo juhdi iyo qarash badan galiyay. ninkii dhisay iyo ninkii fikirdan lahaaba waxaa ka wareysan doona dad xog ogaal ah. السلام عليكم دمان أصحابتنا نقول حرن كلنا ديلس ما أنت واحد جوجنا جوري آدي قروح بدن والله قد يصدق كأنه هاي الصومالية وحفكر دان قروح ذا بدن لي ما هذا جناعسي دلني يرد كم إذا دلني يرد قرب جوكتا وما أنت جورجان قروح ذا بدن كهير جلسة دلكين جورجان سيدا أدون كلاجية قانا وحلا قد يسحبها يمالها متقانا الود الحيسو إن هذا يرتان وحكي يسي متقانا ديجان كدارالسلام جورجان مجلس وحلا را كابين هاوس وجوري كسمة الواح وجوري متقانا دي لوga taxadaro aad u qurux badan wallahi marka arka laftirkay waxa isla guriga inaad dhisatid waa insha Allah marka insha Allah asla socon hadal badan ka gaarno inta qarash oo gashay iyo sida loo dhisay iyo wadooyinka uu maray dad ma taqaana maadaama uu soo joogay qofkii iska lahaa waxa ka wareysan doona dad xog ogaal ah هذا واحد تاجرنا الباب كجورجا وسوي لا هنا جورجان قرا can't wait وسوي لا هاي سو قرقراعنا هودي والله الباك نفر صاصع marka gurigan waxa waa guri aad u qurux badan waliba waxa idin tusi doona qolalkooda sida oo maxaa la yiraahdaa loo dhisay dhismaha hadda ku socdo horta inta kasto aanan imaan asagoo dhamaanin laakiin macnaha waxaan hadda idin tusi doona intii la dhameeyay iyo wixii diyaar ah iyo mataqaana ujeedkii hadafka laga leeyahay gurigan loo dhisay insha Allah adigina inaad dhisato isku dayay muuqaalkaas ka daawanay gurigan sida la sheegay waxa waa cabirkiisa waa 15 waliba waxa la dhahaa G+1 oo ah guriga biyaano hoose biyaano koro waaye laba jiko iyo laba musqulna uu leeyahay xagadaas ama kaamirada maxaa la yiraahdaa horteeda soo istaagay mahad caraale oo kamid ah dhalinyarada ka shaqeysata real estate-ka ama mataqaana guriyaha iyo xogagka ku saabsan aad u gudbiya haddana inaan meeshan imaanay mataqaana guriga muuqaal ka soo duubnaan sababtiisa laha aad xog ogaal u mahad caraale soo dhow saaxiib waa saaxiib waxaan leeyahay ku soo dhawaada Daarusalaam iyo gurigan quruxda badan oo hore loo arkin. waxaan leenahay soo dhawaada gacan furfur. gurigan mataqaana maadaama iga xog ogaalsan tahay gurigan horta muxuu ka sameeyay gurigan saa u jeedid waa alwaax iyo biro la isku alxamay. صح waxa guriga in lagu raaxaysto oo waqti qurux badan lagu qaato aa loo dhisay. niyo fikradan iyo ka soo curatay ama mataqaana qofka iska leh ma qof dal joogta ah mise dad waxa waaye oo dadka dibadaha ka yimaada wallahi gurigan waxa waa yar saaxiibna iska leh oo qof joog ah waxa waaye wadankiisa inuu horumarsado wadankiisa aamino oo guri qurux badan ka dhisto ugu talagalay oo ku nasto okay gurigan ma kiro u rabaa ma inuu gato rabaa mise wuxuu rabaa inuu gurigan mataqaana gurigan waxa la yiraahdaa gurigan sida oo hagar baxay oo loo qurxiyay guri dhan oo boos ah oo cabirkiisa 15 20 yahay oo haddana 3 qol ay 4 qol camal laga dhisay
gurigaas guriga kiri la rabo maahan gurigaas in lagu raaxaysto oo madax lagu degsado dad soo shaqeeyo oo qurbo soo shaqeeyay gurigan dhisteen wadankooda hawadan caawadan qabow inay qaataan ay ugu talagaleen niyow inta badan guryahan waxaa loogu talagalay meelaha qabowga in laga dhiso mataqaanaa waxaa la dhahaa camping house in meel kuleel laga dhiso waxaa waa guriga alwaaxyadoo kale inuu huuro oo aboor galo oo guriga cunaa laga yaabaa marka sidee looga hortagay wallaahi taas injineerka dhisaan weydiinaa fahanti injineerka tahay laakiinse gurigan wuxuu ku yeelaa meel jabi deganaa oo maaragtay eridiis jaam ah dhinac walba kaaga imaane balkoona ku wareegsan dhinac walba ku raaxaysan kartaa marka dhinac walba kursi daarigatid aawo fiican qaadan kartaa okay ما يدم لهن قلالك وككوبان يا أنت وككوبان يا مسكوس فيديو وحرجينا أنا إنجنير كنت كأنه إنجنير كله هلكرا إنجنير كله هلكرا أنت كأنه ديار وحنجعلها لها إنه مقال كان نجلس وموضوع وقيب كان إن شاء الله واحد يقدم بيا قلالك ميدا قلالكي ومت كان لو سمي ولي بدي اسمع كسعته جورجان waxay intuu doona qaabku waasac u yahay oo aad ka dareemi kartiin loogu talgal gurgaan inuu lagu nafiso lagu raaxaysto ninka aqli loo waaya ma sha Allah gurgaan ma ka mitiro noqon kara ugas qolkiiba 4 mitiro square waa soo ma tilaaben kara okay kool 3 4 5 waaye kane waa jikada guriga oo ma taqaana si fiican loo carbi waliba dhisma ku socoto sidaan ay tahay waxa uu harsan meesha waxa ku dhigan wallpaper oo la rabo in guriga dhan gabi ahaanba lagu dajiyo marka insha Allah kani waa jikadiisa wow okay afar qaanadood ninkan ma la dhihi karaa gurigan inuu xaasi wax dajiyo uma soo talgalin asaga nafsad ahaantiisa inuu degnaado cunto ku karsado bis ugu soo talgalay guriga dhan waxa ku wareegsan balkoon oo dhinac walba ka leeysan kartaa soo galaysa saana u soo wareegsanay dhinac kale ugu bixi kartaa kan wareej صبح ساسع كم كيلو زاد مسقول وين بدنا مسقوش انت لا تايوان هذا ما هو لكن واحد الهيلي كربها مسقوش والله زائد وين تهي horta gurigan ani ahaanteyda hadhood marka muuqaalka dhameynayno gabagabeynayna waxa sii doona rate ama intii aan dhihi lahaa boqolkiiba intaas u qalma laakiin wallahi caadi ma wadalkaaga maalgasho asaa maalgashi kaaga baahan hadda waxaan taaganahay guriga hoostiisa waxaan rabaa inaan galo qaybaha hoose ee guriga meelahan oo dhan waxa lagu beeraa beer gurigan waa guri laga fakaray oo waqti iyo juhdi iyo qarash badan galiyay ninkii dhisay iyo ninkii fikradan lahaaba meeshaan aad u jeedaan waxa ku yaala qol iyo musqush kaliya iyo jiko meeshaan waxa loogu talagalay hal qof inuu ku noolaado ama family cusub oo iskaabule ah ka haatan waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii gurigan hadda imaanay maanta waxa ku socda dhismihii wali muusan idlaanin waxaan rajay doonaa markii ama waxaan jeclaan doonaa inaan ka soo qayb galno markii xarig jarkiisa ama markii la gaaro in la xarig jiro la furayo insha Allah waxa uu harayba waa adiga waa isbuucyo insha Allah videoga xigo waxa arki doontaan gurigii oo la xarig jiray oo qurux badan oo la dhigay oo la gogolay oo ma taqaana wixii soo dhameystiran yihiin ujeedka ama muuqaalkan laga leeyahay waxay tahay hadii aad u baahan tahay inaad boos gadato ama guri aad gadato ama guri dhisan laga gado ama ma taqaana guri goglan laga kireeyo kulli waxaad ka heli kartaa ku dhan deals wixii aad faahfaahin waxaad nagala soo xiriiri kartaa numberka iyo gmailka iyo inta platform ee meesha ku qoran aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalka xiga inoo balan